halkani waa Dublin Castle oo maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Irishka Michael D. Higgins lagu caleemo saarkiisii oo bilaabmaya 6 galabnimo ee maanta. halkan waxaa fadhiya journalistayaashii oo imika u diyaar garoobaya inay xafladdaasi ay live u soo tabiyaan. sidaa awgeed waxaan halkan barnaamijkan maanta aan kala socodsiin doonaa Dublin Castle annagoo hor fadhina sugayna madaxweynihii iyo dowladdii iyo diblomaasiyiintii sheeyaha oo la filayo in saacadahan soo socda ay halkan yimaadaan oo halkaasi loogu dabaaldego madaxweynaha jamhuuriyadda Irishka 7 sano oo uu xilka hayn doono. waxaan sugaynaa imika ay diyaar garoobaya journalistayaashii dhacdadan laftigeega ay soo tabiyaan oo aan ka samayn doono dhacdo cajiiba oo ku saabsan in dadku ay wax ka bartaan Soomaaliyeed bal sida ay u dhacaan xafladaha noocani ahi. barnaamijku waan noo soo wadaa oon sugi doonaa. barnaamij xiiso leh buu noqon doonaa. waxaa isku arki doona madaxweynayaashii soo maray jamhuuriyadda intooda badan inta nool. waxaa ku jira prime ministeradii soo maray jamhuuriyadda Irishka. waxaa ku jira golihii wasiirada oo dhan oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha imika Leo Varadkar iyo ku-xigeenkiisa iyo golaha wasiirada. waxaa iman doona diblomaasiyiinta shisheeyaha ee Irishka u fadhiya waddankan dhammaantood. waxaa kaloo iman doona wakiilada waqooyiga Ireland oo North Ireland oo iyaguna halkan imika soo galaya. waxaa imanaya madaxda makinisadaha ama hogaamiyaasha churchka. waxaa kaloo iman doona dadka ugu caansan dalkan ee qiimaha weyn la siiyo Irishka. waxaa ka mid ah qurbo joogga. waxaa ka mid ah dadyowga kale ee iyaguna lagu soo casooyo marti sharafta ah ee qiimaha ku leh dalkan jamhuuriyadda Irishka. waa xiise gaar ay leedahay madaxweyne Michael D. Higgins inuu mar labaad uu ku soo baxo jagadan oo uu helo 56 cod. waa maalin taariikhi ah oo aan goobjoog haddii alla ka dhigo aan u noqon doono saacadaha soo socda dhacdadan cajiibka ah oo aanu idiin soo gudbin doono markay gaadho 6 galabta saacadda Irishka. barnaamijka live ku jira. saasaan idin rajaynaa guul dhammaantiin. waxaan sugaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Irishka Michael D. Higgins. waxaa madaxweyne soo galay hadda live. madaxweyne Michael D. Higgins 7 sano dambe. waxaa soo dhaweynaya prime minister ku-xigeenka Simon Coveney. waa madaxweynaha jamhuuriyadda Irishka. waa brotokolkii madaxweynaha. waqtiga brotokolka madaxweynaha. wow. xafladdu goordhow ay bilaabi doontaa madaxweynaha ayaa ka khudbayn doona.
gudaha ayaynu geli doonaa wax yar kadib. haweeneyda protocolka madaxweynaha oo ah mootooyinkii waxaanu geli doonaa gudaha oo ay ka bilaabmi doonto xafladdii caleemasaarka madaxweynaha 2018 halkan waxaa taagan dad badan oo journalistayaal duubaya dhacdada iyada ah laftigeeda. waxaan rajaynaynaa inaan gudaha hore u soconno. protocolka aad buu adagay barnaamijka markaa mar dambe gudaha aanu gallo ayaanu la socodsiin doonaa. saasad ku mahadsan.